الرحمن الرحيم داوديال habeen wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii xoogaal oo aan waraysiyo kala duwan kula yeelano siyaasiyiinta aqoonyahanka iyo waxgaradka barnaamijkeena xoogaal waxa maanta ku soo booqanay xafiiskiisa oo aan ugu niminday isagoo aad iyo aad ugu mahadsan naga aqbalay gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Cabdi Axmed Aayar mudane gudoomiye marka ugu horeysa bulsho TV anagu aad ayaan kaaga mahad celinaynaa ogolaanshaha aad naga ogolaatay iyo waqtiga qaaliga aadna siisay aad aan kugu soo dhaweynaa kaamirada bulsho TV idinka mahadsan intii bulsho TV waa bulsho ka howlgala Somaliland gudaheeda dabadana saadii sheegteen laga daawan karo YouTube-ka marka aad iyo aad baa u mahadsantii wadi soo dhaweynaa mudane gudoomiye su'aasha horeysa aan ku weydiinayaa waxa weeyaan waxaan u maleynayaa intii xilkan lagu soo magacaabay gudoomiyenimada gobolka Awdal waa sanad iyo 8 bilood ama 2 sano ayaa hadda gabagabo ku dhow bal waxyaabaha ugu waaweyn xagga horumarka arrimaha bulshada ku saabsan aad noo tilmaami karto ee muddada aad joogtay qabsoomay maxaa kamid ah runtii wax badan baa u qabsoomay gobolka intii muddadii anagu aan joogay waa ogtiino wadadii dila iyo boorma u dhaxaysay markii anagu aanini in badan dilana way ka soo bilaabmaysay may soo gaaraynin tuli boormana way ka baxaysay may gaaraynin ilaa guriga cawl ayay ku akay muddo inta kale waxay dhisantay intii muddadii aan joogay ayay isku xidhantay oo dhisantay alxamdulillah boorama saad ka warhaysaan waxaa ka hirgalay waddooyin aada fara badan degmada gudaheeda oo ay ka mid tahay taa isku xidha camuud iyo u gudbaysa ilaa iyo madaarka hadda la wado qaybteedii labaad waxaa ka mid ah waddada cisbitaalka iyo isku xidhaysa Hargeysa markaad ka soo baxdid ama adeeg goboladii dhexe wadadii tooska ah soo qabsanayso cisbitaalka guud soo hormarayso maamulka gobolka soo hormarayso oo ku dhamaanaysa iyaduna afkeeda guriga markii hore guriga martida loo yaqaan iminka guriga gobolka ah waxa iyana gacanta lagu hayaa oo iminka dhamaystirkeedii dhamaanaya wadadii Sheekh Cali Jawhar dhinacaas waa dhinaca wadooyinka waxaa dhismay runtii oo dib u dhisnay gurigii martida oo aanu deyr iyo dhulkiisiiba banaynay isagana dib u habeyn ku samaynay runtii marka aan gobol ahaan ka hadlo degmooyinka dhismay waxaa ugu badan bak oo dhinaca beeraha aad iyo wadooyinka laftooda caratuurka ah intaba laga shaqeeyay waa laga qabtay muddadii aan gobolka joogay waxaan isleeyahay markaan xagga dhismaha eego wasaarado dhistay wasaaradahoodii iyo haykalkii dowladnimo u dhamaystirmayna way jiraan sida xiriiryaha guud ee gobolka xafiisyadii ay ku shaqaynayeen oo u dhismeen meelo badan baan tilmaami karaa marka degmooyinka Luqaya iyo Baki iyo Dila iyo Qolujeed gobolka degmooyinkiisa la isku soo ururiyo mashaariic yar oo badan baa ka fulay oo hoose runtii anigu gobolka markaan iyo xataa xagga arrimaha bulshada u bayro wuxuu ahaa gobol markaa xiisad badan ku jirto oo kacsan oo ka soo baxay xilliyadii doorashooyinkii golaha deegaanka xiisadihii ay dhaliyeen bulshada lafteedu ay aada u kala qaybsanayd oo ay iyada lafteedu aan ahayn bulsho urursan oo tala wadaag leh waxaan aada iyo aada mashaakille u ka jiray meelaha qaarkood oo qadiyadii dilkii xariirad ka dhacay oo kale markii lasoo qaado oo ay ahayd meelaha lagu dhameeyey ay ka hirgashay gobolka Awdal iyo maamulka gobolka waana tallaabooyinkii u horreeyay anigu aan qaado ay jiraaho xiisada dami
oo wax ka qabay ahayd runtiina waanu ku guulaysanay dee dowladda markii aanu gudbiyey dowladda waxay soo dirtay wasiiro arrintaa ka hawlgala waxaan u sheegay odayaasha iyo madax dhaqameedkii gobolka waa la wada hadlay xariirad bay u gudbeen mudday u soo qabteen way ka soo noqdeen waxaa loo saaray guddi ka socda guurtida golaha guurtida arrintaas waxay noqotay arrin runtii nabad iyo wanaag kusoo afjaranta sababteeda iyo hirgelinteeda iyo dhaqaajinteedana waxaa ahaa gobolka iyo maamulka gobolka ee anigu hoggaanka u ahaa markaa waxaan isleeyahay xagga arrimaha bulshada dadku isdhexgalkiisu dee bulshadani waa bulsho iyaba beela ah oo sii qaybsanta xiriirka bulshada u dhexeeyay markaa aada uma jecsanayn oo uma fiicnayn waxaan isleeyahay anigu intii aan joogay aada bay isugu soo dhawaadeen oon bulshadu faraqii u dhexeeyeyna ay ka baxeen meesha taana waxaa keenaysay dareenka ay arkayeen oo inta badan ku salaysnaa dhinaca cadaaladda iyo oo ay u dareemayeen marbaa cidda fadhida cidda gobolka fadhida mooyaane cidda kale oo dee kasoo jeeda reeraha gobolka uun inay u dareemayeen inaanay u sinayn anugu ma oranayo cadaaladdarra ku shaqaynayeen runtii waayo waa mas-uul dowladeed laakiin dadka ayaa sida had iyo jeer akhrista sidaa taasina waata keentay in barasaabada gobollada la isku bedelo oo qofna aanu qaadan inuu gobolkiisii iyo reerkii uu kasoo jeeday uu u noqdo barasaab taas waa sababta uu madaxweynuhu runtii uu tallaabadaas u go-aansaday u qaaday ee isbedelka u sameeyey had iyo jeer waxay ka dhalataa labada nin ee ilmaadeerka walaalka iyo inadeerka haddaad istiraahid u garan kaad garta siisid mooyaane walaalkaan wuxuu soo odhanayaa wuxuu ka cararayay in la yidhaaho walaalkiiba u exdo inadeerkaana wuxuu odhanayaa walaalkiiba u exdo haddii aad garta laga helo markaa runtii sababaha keenay inaanay noqon ee qof dhex u ah bulshada aanay bulshada u dareemaynin inuu dhinac yahay inuu yimaado waata keentay madaxweynuhu isbedelka ugu sameeyey barasaabada taliyayaasha ciidamada qaybaha ee booliiska waxaan isleeyahay markaa dhinaca bulshada haddaad iga weydiisayna wax badan baa bulshadu iskaga soo dhawaato maanta waxaa ka dhexaysa midnimo iyo wax wada qaybsi iyo tala wadaag mudane guddoomiye aad baad umahadsan tahay arrintaa matalan aada xustay waxay ahayd dabcan dadka siyaasadaha jira iyo ololayaasha lagu jiray iyo maxaan ku dhaha axsaabta ay u kala jeedaan iyo ama beelnimaba ha noqoto ama yani wax kale ha ku salaysnaadaan ayaa laga yaabaa bulshada inay aada u kala jiidanaysa aada u kala qaadaysa marka adiga waayo aragnimadaada ilaa heer intee la-eg baad is leedahay maxaad ka dhigtay bulshadii mid is afgaranaysa oo isfahamsan oo arrintaa midnimo ka wada leh runtii dadka wax ka dhexeeya waxaan ka dhexayn baa jira danta guud ee qof walba taabanaysa way ka dhexaysaa bulshada ta anigu aan kaga shaqaynayaan lahaa aan ka midooba waa danta guud oo horumarka ah oo wanaagga ah wax wada qabsiga ah oo wixii usoo kordhaaba bulshada waa wax la wada leeyahay taas weyaan toogta aan ka shaqaynaya bulshada aan isugu keenayni lahaa war gacantaynu mid ha noqoto taasaynu ku gaaraynaa guusha iyo wanaagga horumarka ta siyaasadda marka la eego dee axsaab baa dalka ka dhisan xisbiyada meel walbana xisbiyadu cid meel isku wada raacaysaa cidina ma jirto dabcan waa qaybsanayaa ta siyaasadda nin waliba halka uu isagu door bidaayo ayay la tahay buu gelayaa oo qaadanaya tallaabadeeda laakiin ta anagu aanu ka shaqaynay aanu jecel lahay dadkuna inuu ka midoobo waa ta danta ku salaysan ee dadka ka dhexaysa danta dadka ka dhexaysa biyaha waa la wada leeyahay caafimaadka waa la wada leeyahay wadooyinka waa la wada leeyahay horumarka soo kordha waa la wada leeyahay taasaanu waxaan isku daynay inaanu tusno inaanay faraq lahayn ee gacanta la isu qabsado laga wada faa'iidaysto inaanay noqon ina reer hebel ama ina hebel baa gacanta ku haya maanta
oo hogaaminaya oo aanay noqon mithal haddaan kasoo qaado dee dowladda hoose oo kale ah degmada boorama oo kale oo ah dowladda hoose de waa maamulkii degmada boorama oo iyada ayaa u xilsaaran inay degmada horumarkeeda ay la timaado marka cidda hogaaminaysa inaan araga loo arko miisaan degmo maamul degmo madax degmo oo ay noqoto gacmaha runtii bulshaduna taa way ka midaysan tahay difference uu jiraya xagga xildhibaanada oo aragtida lagu kala duwanaana oo la odhanaya maamulka ana kaga fiicnaan karaa ka hoggaanka cidda haysa imanka waa jiri kartaa oo faraqaasi mar walba ma baxaayo meel walba dadwada uu ka jira oo dadkaynu kala mid nahay laakiin in ay noqoto marka danta guud la wada eegayo in si loogu soo wada jeesto loo wada dhiso waxaa ka mid a waddada imanka bridge-ka ee ka baxaysa toga dhexmara saylada iyo waxoogaa yaroo khilaafaba ka yimi haddana raggii khilaafka yimi waxay eegayeen danta laga leeyahay iyo muhiimadda ay leedahay waddadaasi markay dhisanto ayaa laga bilaayay oo ay ka doorbilaayeen taasina waa taa aanu isugu soo dhaweyna bulshadu inay ka midowdo wanaagooda iyo dantooda iyo horumarkooda iyo waxwada qabsigooda mudane gudoomiye waa saad sheegtay waddooyin fara badan horta oo magaalada gudaheeda ama banaankeeda waa la sameeyey muddada aad joogtay su-aasha arrimaha in waxay inaan ku weydiiyo waddadan airportka magaalada kalka ka baxdo bariijyadii unbaa la sameeyey aadna way ugu kadeedayna gaadiidkii dadku muddana way fadhidaa adiga ogaankaaga markaa inkastoo su-aasha malaha ku habboonayd dowladda hoose in la weydiiyo adiga ogaalkaaga maxaa ilaa iyo hadda dib u dhigay kolkii hore roob baa jira yaa la yidhi roobka hadda waa waqti jilaala la galay welina gaadiidkii iyo dadkii marayna waa ku kadeedayiin meeshaas alxamdulilah waddadaasi waa waddo muhiim u ah degmada boorama waddo muhiim waabay tahay waddo isu xidhaysa xaafadaha qaarkood baa ka go-aan runtii oo go-doon galaya xilliyada robabka waddadaasi muhiimadeeda ay lahayd ayaa loo bilaabay wakti runtii si deg dega in laga gaarsiiyo xilliyada aan robabku soo caga dhigan iminkana weli xilligii roobka waxaan isleehay weli bishaynu ku jiraa waa octoobar waana marka robabku had iyo jeer waxoog weyihiin waa ayaamkan ama wiigan waxaan odhan karaa roob kama diin boorama laakiin xilliga ay kusoo beegantay waxay noqotay xilliyadii roobabka marka aynu aragno inay roobabku ay runtii qaadeenna waxaan jeclahay inay dib u bilaabmayso ay hawlgelayso bariijada waa la dhisay 3 kaabadood waad aragteen inkastaana wada dhammaystirnayd iyaga laftoodu caratuurkii ha dhinacan magaalada soo xigtay waa la dhameeyey waan maray aniga laftaydu inay dee waddadu aada iminka ay dhib badan uga jiro laakiin waxaan jeclahay dhaqso inay dib ugu bilaabaan shirkadii waxaa jirta mudane gudoomiye degmooyinka gobolka awdal oo aan u malaynayo tiradooda ilaa 6 meelahaas inay gaadhaan waa degmooyinka qaarkood oo cusub yihiin sida maaragtay awdal iyo qurjeed oo kale degmooyina waa qadiim sida maaragtay boorama lughaya baki kuwaas oo kale waa degmooyin qadiim oo jiri jiray weeyaan marka degmooyinka cusub iyo kuwii hore waxaa jirta xadadka ay kala leeyihiinna inuuna cadayno weli uu doodi ka taagan tahay meesha dhexdeeda qaabka cashuuraha ay u qaadaana ayna midaysnayn sida maaragtay waraysi mar aan la yeelno gudoomiyaha degmada qurjeedu uu ku doodayay marka arrintaas oo kale maxaa wax looga qaban waayo wax looga hagaajin waayo runtii waa arrin jirta mana aha arrin inaga oo keliya inagu kooban waa arrin qaranka oo dhan ku kooban degmooyinka waxaa la sameeyey maamuladii horena markii ay degmooyinka sameynayeen xuduud umay kala samayn way jiraan degmooyinka qaarkood dee xad mucayana bay lahaayeen oo degmooyin jiray bay awal ahaayeen sida baki oo kale iyo luqaye iyo laakiin degmooyinka ku cusub ee kale sida qolijeed iyo dila iyo waqtiyadii dambe intii maamulada la sameeyey xad mucayana waxaan may lahayn waxaan kala simannahay kuwa degmooyinka gobollada kale oo dhan degmooyinka ka jira
hawshaan waa hawl imika lagu guda jiro oo wasaaradda arrimaha guduhu ay hawsheedii wado oo la doonayo tii degmo u qalantana ee cashuur iyo maamul shaqeeye lahaatana ee wax soo saar lahaatana dee degmo ahaan ay u promote garowdo waayo degmooyin badan baa oo aan ahayn kuwa dhiida ama xitaa jiro oo aan dhiiba ahayne magaca u yaala oo fara badan baa jira marka weli waa arrin national oo dalka iyo qaranka u taala kala xadayntu maaha mid doorma iyo awdal kooban waxaana jeclahay wasaaraddu gacanta ku haysaa hawsha oo waa ku guda jirtaa sidii ay u dhamaystiri lahayd صح gudoomiye waa runtaa waa arrin national ama heer qaran dhibaato taagana laakiin dhibaatada waxay ka taagan tahay matalan dadka imanka marka xoolaha dhuxusha iyo caanaha kale marka la yiraahdo degmo walba meel bay u badan yihiin ka yimaadaan haddii meesha cashuur laga soo qaado tu labaadna halka laga qaado waxay culays ku tahay dadkii maaragtay masaakiinta arrintaas oo kale marka qaabkii looga culayska dadka looga fududeyn lahaa يعني هوري وسود دكتور ما كان بعد ما تا هذا قرح بدل بس الدولة ده حيرتاح إنه دخل يقبض أو علاش مسكين قوم صار ما دخل الدولة ده إنه يقبض بالشري إذا علاش صار ما يماها وهي الدولة ده حيرتاح دتك أنا أقول محرستها وبالشري دي عدة يوم فكرت وناك للدولة يصير هرمك للدولة يصير لغالين سواء مضي بالشري دتك ما كان الدولة way jiraan meelo yaryar marmarka qaarkood la isku qabsado laakiin maaha mid caam oo mucaamala oo jirto maaha waxaa laga yaabaa qorijeedoo kale cashuur laga soo cashuuray inay halkan markay soo galaan beeraha laakiin tafahamku wuxuu ka dhexeeyaa oo runtii sameeya si u qaadi lahaayeen cashuurtaas ay u midayn lahaayeen dowladda hoose ee degmada marka halkaa ka jirta iyo degmada kale marbar way yimaadaan laakiin maaha wax joogto oo dhacdo oo isku dhaca runtii maaha su-aal kale oo isla golayaasha deegaanka oo ku saabsan matalan waxaa dhacda khilaaf inuu yimaado golaha deegaanka dhexdiisa maaha mid degmo keliya gaar ku ah su-aasheedu marka waxay tahay golayaasha deegaanka marka khilaafaadku ay yimaadaan maayarka iyo golaha deegaanka isqabsadaan kaalinta gudoomiyaha gobolka uu leeyahay ma inuu dhexdhexaadiyaa dastuuri ahaan ma inuu dhexdhexaadiyaa ma inuu maxaan ku idhaahdaa sugo iyo wixii ay maaragtay ugu dambeynta ay gaadhaan ba yani halkaas sharci ahaan ama dastuuri ahaan bal sida ay tahay inaad noo cadaysaan aada jeclaan lahay golaha deegaanka horta waa dee golo lasoo doortay oo jiro oo dhisan oo cod kii bulshada ku fadhiya iyagaana ah dee maaha qof iyo labe waa gole goluhuna afkaartiisa iyo aaraadiisu way kala duwanaanay waana la isqabanay waa la dootanay waa la wada fadhiisanay waa la isku garan waayaya hawsha iyo shaqada way noqonaysaa in la isku garan waayo oo la isku khilaafo aragtiya kala duwan laga kala yeesho runtii marka roolka uu leeyahay waa golo dhisan sidaa dee baarlamanka waa sidaa baarlamankeena guud ee qaran oo u dhisan yahay ee u dootoma ee u yimaadaan ayaa golo kasta oo degmo u leeyahay isaguna qaab dhismeedkiisii iyo doodiisii iyo mas-uuliyaddiisii roolka uu ku leeyahay governorku dabcan mararka qaarkood conflictku iyagaa iskale inta badan oo sharci u siinaya oo leh maalan haddii ay is yidhaahaanba ka qaada xilka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka dee sharci buu leeyahay iyo nidaam loo soo maro waxa weeye nidaamka iyo sharcigaasi wuxuu siinayaa inay marka horena 7 xubnood oo committee ay soo oogi karaan oo ay keeni karaan mooshinka marka dambe ee fadhiga haddii la isku raacana 2 meelood 2 meelood ahaan ay xilka kaga qaadi karaan laakiin markay mooshinka usoo gudbiyaan within 3 days inuu ugu qabto sharciyan sida sharcigu dhigaayo 3 cisho gudahood inuu haddii ay codsadaan kala fadhi aan caadi ahayn golaha intiisa kale 7 xubnood oo committee waa inuu qabtaa haddii arrinkaasi uu qabsoomi waayo ayaa guddoomiyaha gobolka waxaa xaq ay ugu leeyahay marka horena in ogeysiin la siiyo markaa dambana waxay xaq u leeyihiin golaha deegaanka hadduu shirka u qaban waayo inay guddoomiyaha gobolka usoo qortaan oo uu muddo 5 casho ah isaguna ugu qabto
xagta uu sharciga u leeyahay waa taa laakiin marka ay tahay shaqo timaado cidda hoggaanka iyo mas-uuliyadda ah iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada dee waa waxa uu barasaabku ama guddoomiyaha gobolku waa mas-uuliyaddii u sarreysay buu hayaa cidda uu la shaqaynayo ay wada shaqeeyaan waa maamulada degmooyinka ayay markaa runtii sharciga waxa uu siinaya waxa weeyaan waa markaa ay isqabashadooda timaado ay heerkaas soo gaadho ayuu leeyahay xaq u leeyahay 5 casho kalfadhiga markaa inuu fariisiyo mudane guddoomiye waxaa jirta diiwaangelintii ayaa dhowaan waati ka bilaabantay maxaan ku idhahdaa caasimadda laga bilaabay xubno golaha wasiirada golaha wakiilada way wada qaateen weli ogaantay kamay bilaabmin degmooyinka iyo gobolada kale ee dalka maxaa dib u dhigaya markaa haddii ay dib u dhacdo oo la bilaabi waayo diiwaangelintaas ama kaarka muwaadinka uu qaadanayay soo ma keenayso inay hawlo kaloo ku xidhnaa iyo amaro kaloo ku xidhnaana dib u dhacaan maya runtii waqti bay leedahay ku talagal bay leedahay qorshay leedahay guddiyo kala sarreeya ayaa hogaaminaya oo wada oo maamulaya oo heer wasiir iyo heer agaasimayaal iyo leh ayay leedahay waxay u soo gudbiyaan taa iminka Hargeysa laga wada waxa weeyaan in la tuso bulshadu sida ay u qaadan lahayd si ay u geli lahayd oo ay madaxdii qaranku ay bilowday inay iyagu qaataan ilaa dadku ma kala duwana madaxda bulshada ka mid tahay gobolada oo dhan mar baa laga wada hirgelinaya oo ay ka bilaabmaysaa taana qorshaheeda iyo hogaaminteeda waxaa iskale wasaaradda daaqiliga wasiirka daaqiliga waxaana jeclahay inay dhaqso iyo ciyoon usoo gudbi doonto gobolada ugu soo gudbi doonto su-aashaan hadda raba waxaa iska yar noqon kartaa dhinac shaksi bay ka noqon kartaa dhinacna waa iska noqon kartaa arrin iska guud bay noqon kartaa xiriirka adiga ka guddoomiye ahaan gobolka awdal iyo odayaasha dhaqanka oo bulshadeena saan ognahay odayaasha dhaqanku rool weyn ba kaalin weyn bay ciyaaraan hadii jeer ku leeyihiin saameynta howlaha socda ama maamul ha noqdaan ama nabadgelyo ha noqdaan ama arrimo kale ha noqdaan marka adiga cabdo axmed ayar ahaan xiriirkeeda ka dhexeeya shaksi ahaan iyo xiriirka maamul ahaan ka dhexeeya adiga iyo odayaasha dhaqanka gobolkaada suuliya aad iyo aad buu wanaagsan yahay runtii waayo gobolka markaan imi odayaashu dee waxay ka mid yihiin waxyaha bulshada qaybaha ugu muhiimsan bay ka mid yihiin qaybaha ugu muhiimsan bay ka mid yihiin runtii waxay markii anigu aan halkii aan ka bilaabay ama aqoon-yahanka ha ahaato gobolka ama dhalinyarada ha ahaato ama salaadiinta ha ahaato madaxda dhaqameedka iyo odayaasha iyo cuqaasha halkii aan ka bilaabay bay ahayd ilaa iminkana dadka had iyo jeer marka ay waxyaabo iyo conflict iyo arrimo yimaadaan iyo khilaaf meelaha aanu la tashanay ee u yeelna talo wadaaga ama u xilsaaraa bay ka mid yihiin annaga xidhiidhkeedu aad iyo aad buu wanaagsan yahay waa laga yaabaa anugu markaan imi faraq weyn baaba iyaga laftooda u dhexeeya difference weyn cidda isu keentay garanaysaa ay isku soo dhawaadeen waxaa yaraaday wixii u dhexeeyay oo dhan baan ka saaray meesha saa darteed bay waxay noqdeen iyaguna midnimo madaxdii dee tabashada u gudbinaysa baad qayb ka tahay run ahaantii dee tabashadu way badan tahay weerar kala duwanta waana wax ma aha wax halkan oo quree cid kasta oo bulshada reer Somaliland ka mid idina xogaal bawti aan wax tabanayno ma jirto waayo tabashadu ay ku imanaysaa awood qaran ee aynu leenahay ayaa sababay kumana salaysna tabashadu gobol kuma salaysna reer kuma salaysna ilaa iyo waxyaha iyo qaybaha ku hooseeya ayay ku salaysan kartaa xaqiiqdii markaa arrintaas iyaguna dadkii kala mid walaa sii guud ay dee odayaashu ay la tageen baa muuqaal yeelatay laakiin dee dadku oo dhamay itaalkeena iyo awooddeena ayaa sababay waxaan is leeyahay markii intii hore maamuladii hore ka horreeyay dadku quus bay hayeen waxba may arkaan laakiin waxaa keentay yuhuuntan
maanta horumarka iyo waxqabadka iyo ee la arko ayaa dareen dadka cid waliba inay de halka wax ka tabanaysa wax ka dareento ayaa sababaya awal cidiba wax ma hadli jirin waayo muuqaal baan lahay dareen baan jirin aragti baan muuqanaynin maanta se waxaa muuqanaya horumar wanaag socda oo la taaban karo oo wax badan oo la qabtay baa muuqanaya taasaana sababaysa runtii in ay noqoto dadku uu cid waliba dee dareenkiisa la soo qocoyna wallahi waxbaa qabsoomaye halka hadda wax lagaaga qabto tabashooyinku sida keenaya waa sidaa mid gobolka ku saabsan mid bulshada oo dhan ku saabsan oo dareenkeeda mudane gudoomiye aad u mahadsan gabagabadii waraysigan inaan ku dhawaanayno waxaan rabay su-aal inaan ku weydiiyo waayo aragnimo badan waxaad u leedahay muddada Soomaaliland ka shaqeynaysay laba gobol oo waaweyn ayaa mas-uuliyadda soo qabatay gobolka Togdheer iyo gobolka Awdal inta joogto marka labadaa gobol dadkooda waxyaabaha horumarka waxay ku fikirayaan maxay isaga mid yihiin maxayse ku kala duwan yihiin oo qoladaas inay waxa iska daysaa fiican qoladaas waxa iska daysaa fiican si ay bulshadaas baro kala faa'iideysan waayo aragnimadaas waa tu malanta goobna ka qor lahayd oo baahan horta waa su-aal aad u fiican runtii bulshada reer Somaliland ma kala duwana meel kasta ku noolyihiin afkaartooda iyo dhaqankooda iyo wuxuu waa more or less wadad isku mid ah aan u kala eegaynin inay wax abadan ku kala duwan yihiin laakiin markaan eego bulshadana waa bulsho degaan oo beerale ay u badan yihiin bulshada reer Togdheerna waa bulsho weli socota reer guuraa horta faraqa inta ay kala leeyihiin waa meelaha dabeetana faraqaas labadaa faraq ee u dhaxeeya ee midna deegaanka noqonayo midna reer guuraaga noqonayo wuxuu leeyahay had iyo jeer dhaqamo kala duwan waxaan is leeyahay sida kale oo dhan waa isku mid laakiin faraqooda u dhaxeeya labadaa qodob baa ugu weyn waxaan odhan lahaa conflictka waxay ku kala duwan yihiin reer guuraagu mar bay kulmaanoo qacbay iska siiyaan way dhamaataa xiisadooda degaanka dadka degaanka ee beeraleyda xiisadooda ma kala guuraya ma kala fogaan wali way isu muuqdaan ma dhammaato meel ay ku kala duwan yihiin farqiyada taasoo kalaa ka mid ah oo waxaad arkaysaa beer la isku haysto aan 13 iyo 13 sannadood xiisadeedu socotay oo u leeyahay beertaygu wayaan ama madahaygii ama xadkaygii xuduudaydii waliba aan sidaan iminka dareensan sidii berigii hore loo isticmaali jiray beeruhu ay xuduudda u lahaayeen dhabta ah maanta maaha wixii foolkiisa ka soo jeeda oo dhan ee beertiisa madaxeeda ku beegan oo dhan ayuu qofku sheeganaya weligeed ku ogmayso mid kalaa dhinaca kale ka sheeganaya waxaan is leeyahay bulshada reer Togdheer haddaan sida hawaani waxaan odhan lahaa dilka badan meelaha ay ku kala wanaagsan yihiin gacanta degdega ah waxaa ka fiican hadalka la wada hadlaayo ee sida degan ee fadhiga lagu wada hadlaayo ayaa ka fiican ma reer Togdheer haddaan reer Boorama eego taawi kaga duway waa la wada hadlaa laakiin iyaga laftooda waxaan odhan lahaa hadalka aan go-aynay waxaa ka fiican ka xadka yeeshee soo go-a meel ku dhamaada aad iyo aad baad mahadsantahay mudane gudoomiye waraysiga kooban ee aan isleenahay kulli hadana muddada aad maamulka gobolka Awdal haysay wax badan buu ka dabooli karayaa oo uu taabanaya laga yaabaa haddii ay jiraan su'aalo badan oo aan gafnayna inaan marar kale isku nimaadno aad iyo aad baad u mahadsantahay intaas ayaynu waraysigeennii kusoo koobaynaa mudane gudoomiye aad baad u mahadsantahay